markaan aad u fakeray waxaa igu horreeya aan rabo inaan idin iraahdo oon idin mariyo dhallinyarada Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya dhammaan dadka Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed oo konton jir iyo wixii ka weyn ah magacooda aan ku hadlayo inaan idin iraahdo dhallinyarada Soomaaliyeed naga raalli ahaada naga raalli ahaada waayo wixii annaka jiilkii annaka naga horeeyay facay naga horeeyay waxa ay noo dhiibeen aan ku soo barbaarnay idinma hayno maanta idinma dhiibi karo naga raalli ahaada haddaan idin dhaxal siinay dal oo weli isdilaya ama aan weli nabadii iyo amnigii weli ka jirin dhexdiisii haddii ay jiraan naga raalli ahaada haddii wixii aad tiranayseen ama noloshii wanaagsaneed aad rabtay inaad dhisataan hadday idinka carqaladaysan tahay oo taa idinkaga tegayo naga raalli ahaada waayo waxaan rabaa in yar wax hadda cusub idinma sheegayo maanta oo dhan saa u doodayseen iyo warbixinada aan dhegaysanayay waxay aad u tilmaamaysaa in basay dhallinyaro uu soo ifbaxayo oo aad noo dhiirigelinayso hase yeeshee waxaa la yidhaahdaa qofka meeshii uu ka yimid aan garanaynin meel uu socdana ma yaqaan in yar aan idinkaga hadlo 3 qaybood oo noloshayda ka mid ah si ay daaqad idinku furanto meesha aad u socotaan ay u caddaato anugu waxaan dhashay 5 sano ka bacdi markii dagaalkii labaad uu dhammaaday waxaan ku soo barbaaray Soomaaliya ama marka aan ku dhashay aan ku soo koray waxay ahayd Soomaaliya oo aan lahayn ururo aan lahayn calanka Soomaaliya buluuga aad arkaysaa markaa ma jirin weli Soomaali oo markaa doonayso gobonnimo inay ka baxdo waxaa dhashay markii aan dhalinyaro ka hadlayno maskaxdeena markiiba waxay aadaa 13 dhalinyaro oo kulmay oo Somali Youth League la baxay Somali Youth Club Somali Youth League la soo baxay ay maskaxdeena aadaa taariikhda waxay ku sameeyeen ilaa maantadan xusid mudan bay ku yaalaan waayo raadadkii ay dhaafeen baan weli ku soconnaa yaana soo barbaariyay annaka oo markaa aan dhallinyarada ahayn axsaabtii siyaasiga ahaa iyo dhallinyaradii waxay abuureen oo mar walba iskuulaadka elementariga noogu imanayay oo nagu wacdinaya oo carruur yarar annaku abaynu odhan jireen madaxdii beritaa tihiin waxaa yeela waxaan ha yeelina saa yeela waana kicinayeen intaa waxay nagu abuurayeen Soomaalinimo ka soo gudub xorriyaddii baan ku qaadanay isla ayagii falsafadii ay nagu abuurayeen iyo wacyigii iyo wacyigelinteena siinayeen ayaan ku soo gaarnay ilaa 69kii yani markaa ururo waa jireen ururo madax bannaan ururo dhalinyaro ururada macallimiinta ururada oo shaqaalaha isgaarsiinta ururada caafimaadka ururadaas badanaa jiray oo xukuumadda tallaabaday qaadaysaba annakaa digtad garayn jirnay annakaa u yeerin jirnay hadday leexatana waan ku kici jirnay taasaa la yidhahdaa dimuqraadiyada ururada loo samaynayo looma samaynayo aniga golaa iyo kaasaan noqonayo reerkii hibley oo ku faa'iidaysanaa waxa loo samaynayo waxaa weeyaan difaaca aad difaacayso arrimaha aad aaminsan tahay caqliyan ummaddaas ay ku hormarayso ayaa loo sameeyaa mooyaane reer hiblow iyo futo biciid kale looma sameeyo waxaa markaa muddo aan ku soo soconnay dhallinyaronimadii markii aan ku jirnay kontonaadkii ilaa 60naadkii laga soo gaarayay ma ahayn urur dhallinyaro oo sugaya in mucaawano ay xukuumadda ka helaan ama mucaawano urur oo marata NGO ayaamahan la baxay ay ka sugaan ama United Nations ay ka sugaan ma ahayn waa u baahneen lacag inaan ku wadno afkaarta aan wadano iyo waa xorriyadda aan gaarno aan rabnay waxaan xusuustaa maalin ilaa hadda aan xusuustaa waxaan samayn jirnay si aan fundraising arrinta yani lacag inaan urursanno oo aan buugaag uga soo gadno dadka marata wax ugu qorno waxbarashada meelaha aan ku samaynayno lacag la'aan baan ugu dhacday mar waa isu nimid waa fakirnay xaggeen lacagta ka keenaa yani shilin Soomaali ma hayno maxaan haynaa xaggeen ka keenaa waxaanu samaynay riwaayaddii aan samaynayn marka gabdho waa nagula jireen laakiin habeen waxaan xusuustaa gabadhii nagula jirtay riwaayaddii inay soo baaqatay aniga diraca lay geliyey adiga xoogaa dhuudhuubanaya dirac lii garma lahayn markaas si habeenkaas u galno markii hore markaan bilaabaynay 3,000 lagu galay markii dambe la jeclaysa nus shilin baan geynay ilaa bugaagtan basic way la dhahay af ingiriisiga aan dadka ku barin aan ku soo gadno soo ururino walaalayaalo waad samayn kartaan
adigoon cidna baryin baad ururkaaga dhisan kartaa siyaasadaada samayn kartaa hore u socon kartaa xukuumadda aad maragtaa xakamayn kartaa baarlamaanka aad keeni kartaa war adaa iskale dalkan waad jiiftaa ee kac